wuxuu ku yidhi masaasaa dhacday ha okay waxaan kuu gudbinayaa safiirka qusulka guud baan kuu gudbinayaa isagoo shaqaal waxa qusulkan kuu gudbinayaa Pakistan Sacuudiga Pakistan u fadhiya qusulka ayaan warbixintaada gudbinayaa qusulka ayuu warbixintii uga sheekeeyay qusulkuna waxaan kuu gudbinayaa safaaradda safiirka ayaan kuu gudbinayaa safiirka ayuu warbixintii uga sheekeeyay kadibna safiirka ayaa yidhi mehelkaagii baa ku nacay ha may ku dayriyanaha haddii ehelkaagu ku nacay dalkaagii Sacuudi Carabiya ayaa ku baahan dalkaagii Sacuudiga ayaa ku baahan dalkaaga kuma nicin waa qasaruntii aad murugo leh dalkaagina waad ku soo noqonaysaa waana lagu soo celinayaa safaaradda ayaa ballan looga sameeyay Faadumo safaaradda ayaa la keenay daadeedu waxay 13 sanadood waxay ku dhalatay boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaa dhalay aabe reer miyiga oo ku nool tuulooyinka Sacuudiga mid ka mid ah muddo markay halka ku noolayd ayaa aabaheed waxa uu damcay inuu guursado xaas labaad ama inuu miyaqaysto isagoo gabadh hore oo caruur u lahayd haystay kadibna waxa uu guursaday gabadh u dhalatay dalka Suuriya oo miyala ka dhigtay xaaskii weyneed way basayrtay kadibna muddo kadib way iska degtay oo reerkeedii ayay iska dhaqatay oo iska haysatay laakiin miyaradii la soo guursaday Suuriyaanka ahayd ninka Sacuudiyaanka ah ee tuulada ku nool uu guursaday ama Faadumo yar aabaheed ayaa waxay noqotay gabadh fidna runtii oo gabadhii hore ee min weynta ama ninku qabay mar walba waxaan ku xumaanteeda raadisay markay suuqa iska hor yimaadaan huruufta aflagaadaysa gurigeeda horteedana mar walba qashimada iyo waxa ku daadiyay sidii u ahayd ayaa waxay damacday inay markii dambe reerkan dhibaato u geysato waxay ku fakartay fikir aan xataa shaydaanku ku fakirin inay reerkaasi kula kacdo xataa shaydaanka qaarkiis aan ugu fakarayn waxay damacday gabadha weynta ninkeedu uu qabay caruurta u leh in ay dhibaato u geysato cala qalbigeeda inay qaboojisto waxa jirtay in yar oo dhalay ninkaasi gabadha qabay ee guursaday oo lagu magacaabo Faadumo in yar oo ciyaal ah tuulada yar ay joogto ku kortay Sacuudiga mooyaane aan wadan kale inuu jiro aqoonin oo ilmo yar oo ciyaal ah dhinaca kalena waxa deganaa tuulada nin Pakistaaniya oo nin weyna oo xaasla iyo caruur lahaa laakiin ay Pakistan u joogaan oo dukaan yar oo aan hanti badan leh dhex meesha ku haysta oo ay adeegyada dadku ka doontaan maalintii dambe ayay ninkii dukaanka u timid iyadoo fikir u wada waxay ku tiri dukaankaagan qiimayntii la baa ka soo baxa qiimihii ka soo baxayay iyo raasamaalka uu dukaanku ku fadhiyay oo dhan waa uu sharax marka waxay ku tiri waxaan ku hayaa fikir aad qani ku noqon karto hanti badan aad ku abuuri karto waa uu yaabay waxa uu yiri marwo fikirkaasi ii sheeg waan xiisaynaya inaan ogaado waxa uu islahaa waxa ay ku oran doontaa badeecada dukaanka taalo wax ka bedel xiliyada dukaanka aad fursana wax ka bedel shaqaale keen alaaba noocaasa suuqoodu ma fiicna ee alaaba noocana ku bedel fikir noocaasa ayaa isaga maskaxdiisa ku soo dhacay laakiin wadadaas wadaan ahayn bay la martay oo xaggaas waxay ku tiri ma taqaanaa inanta yar ee Faadumo la yiraahdo oo ninkaygu dhalay xaaska weyna u dhashay haabo ku yiri waxay tiri inanta yar ayaan u soo dirsanay adeeg waad faraxumaynaysaa wuxuu ku yiri marwo waxaasi wax macquul maaha mana dhici karto mahawada aan neefsanayo ayaan adii quuraynin sababta aad waxaasoo dhan ii gelinaysan hayd waxay tii aniga ayaa waxaan ku siinayaa hantiinta kugu filan inanta yarna waxay leedaysaa dalkaagii Pakistan lacag kugu filanna waan ku siinayaa ka labayn in hawsha ku dhaqaa shaydaanka uu qurxiyay waa uu la qaatay fikirkii waxay ku tii aniga ayaa guriga tagaya adeeg baan soo dirsanayaa marka ay ku timaado dukaanka xidh albaabadana isugu laab inanta yar dukaanka dhexdiisa kaga faa'iideyso oo ku faraxmay marka ay ka soo noqoto sooda ay soo baxdo aniga meel u istaagaya kadibna iyada dib baan kugu soo celinaya waxaan kula hadlaba dib ninkii ugu way ku soo laabanaysaa lacagtaas aad qaadanaysaa sida marka ay ku soo laabato kala bax magaalada oo wax la aadaa Jidda halkaasna uga samee go home oo Pakistan geysay marxaba iyo marxaba waniga hore idinku sheegay gabadha Suuriyaanka ah gabadha weyn ee lala qabay ee Sacuudiyaanka ah ee ninka Sacuudiyaanka iyada qaba oo hore u qabay ubadka u dhashay way isnacayeen kadibna waxa ay samaysay marwadii weyneed bay u tagtay waxay beer la house buu galowday waxay laba dumar la wada qabay nahay ubadkeena walaala hal sooj bay naga dhaxeeya waxaan doonayaa wixii hore oo dhan inaynu iska laabno oo ay noqono laba qof oo marwooyin oo wada qabo oo walaala ah ubadkooduna ay walaalihiin iyaguna saaxiib ah marwadii weyneed way yaabtay waxay istiri shaydaamadii shaadiintii saarna way ka degeen maanta waa tan hadalka wanaagsan kula timid
waxay ku tiri marxaba aan wax dhibaato kuma qabo soo dhawow qalbi furan anta ayuni wala qalbi wala anta fooqi wixii ay carabi isku oran jireen oo dhan bay isku yiraahdeen inta kadib waxa dhacay Faadumo yar ayaa meesha soo martay Faadumo aniga idin sheegay waa 13 jir da'deedu laakiin barwaaqa ku koro oo jirkeedu uu yar lafo weyn ay ka muuqanayaan waxay ku tiri Faadumo wax ma uga dirsan karaa dukaanka marwadii weyneed waxay ku tiri ha maxaa dhacay waa gabadhaadoo kale waad u dirsan kartaa waana ku soo adeegi kartaa ay khidma way ku sameyn kartaa waxay ku tiri hooyo dukaanka alaab noocaas iga soo gad Faadumo hay bay dhahday marxaba hooyo ku soo gadaya way baxday dukaankii bay aaday waa arin la isla ogaayay markii ay dukaankii gashay ninkii albaabada dukaanka ayaa uu isugu laabay kadibna dantii uu lahaa ayuu ka gaaray wixii uu geysan karay oo dhan uu geystay tii yarayd oo habeenkii oo dhan meeshii uu ku buquujinayay muddadii ay la joogtay oo lugihii aan tilaabsan karayn ama aan socon karaynin ama socod ku dhibayo oo luudaysa ayaa dukaankii ka soo baxday masiibada guur Suuriyaanka aan idin sheegay way sheekada way ogeyd markiiba gabadhii ay hor uga soo baxday dibadna waxay ku sugtay meel dukaanka iyo guriga u dhaxaysa tii yarayd oo lugaa jiidaysa wixii loo dirayna gacanta ku sido oo iska sayilmeedo soconaysa ayaa ka hor timid dibadna way joogsaatay hooyo maxaa ku helay ii sheeg tii yarayd way ka labalabasay intii hore oo dhan waxba uma sheegin laakiin markii ay ku celcelisay tiran hooyada baan ahay waxba hayga qarsanin qofka ku sir qarsan lahayd baan ahay dhibaatada ku gaadhay ila wadaag ii sheeg ninkii wax ku sameeyay muu ku farxmeeyay ii sheeg hooyo ayay wixii oo dhan tii yarayd uga sheekaysay iyo qaabkii uu dhacay waxay ku tiri subxaanallahi alcadiim haddii aabaha iyo hooyada ay arrinkan ogaadaan waagu nolol kugu bariimaayo waa lagu biraynaya oo ceebtay ka cararayaan hooyada baan ahay waan ku nasteexaynaya orod alaabta ii dhib noqo ninkiina ku noqo meeligee ku dhig isagay waajib ku tahay inuu kula baxsado oo noloshaada u badbaadiyo ha aymanin guriga ee noqo xaafadana la ka mashquulinaya tii yarayd 13 jir wada aragtaa waxa lagu biraynaya dhaqanka carabtana way taqaanay tuuladan dhaqanka ku xeeranba in hablaha sharaftooda aad loogu dhinto hay'abay ku jiri oo farka naxwi tiireed ku diyacabs tiireed waxay ku noqotay dukaankii iyo ninkii Pakistaaniga ahaa oo markii hore soo alaabtiisa xidhay oo diyaar ahaa laakiin shul amashil go'aan arrinkan inuu soconayo iyo inaanu soconaynin wadnaha farta ku hayay tiireed oo soconaysa markii hore ku soo laabatay waxay tiri gurigii ma tagi karayo waan baqanayaa in la idila ka baqaya in mari buu dhanaa meel ku soo qarnay inta la inay laawaye saddex maalmood meelahaas ku soo qarnay inta shakada la ilaabayo hay'abay dhahday horuu taxi kal dafay jidda ayuu geeyay guri ay nin saaxiib yihiin oo Pakistaani ah ayuu tiireed geystay ninkii Pakistaaniga ahaa isaga ayaa waxay raadiyeen waraaqo fujariya oo boohom wax la yiraahdo safarada Pakistan ee ku taala magaalada Jidda ay la tageen consuliyada waxay dhahdeen marwadeydii oo baasaboorkii ka lumay waatan sawirkii tiyar balsa xaaskiisa hore Pakistan joogtay oo dokumenti waraaq uu ka hayo ayuu sawirkii laga qaaday sawirka tiyar baa la saaray kadibna waraaq boohoma ayaa loo jaray oo safarada Pakistan ka socota tii yaray واو وحكولي مجرتو إسلامتي وصوها الله صورتها قبلي مرودي اللي بعد السوريانكا أي صوها الله صدق دقت وحاضر هالك جوجل مرقلة سوت سينسة العك فربض النصيصي تيار بيلا هذا شو حكوتي اللقمة اللون أبها مديبوها يستووا برينية واحد سمي سواد كصدق بغض كير مغرو كدي من الدب سوالله ويسجع بسوق علني أنا كودا ما نقاله هايو نلاش هذا نهين بيت هاي مرة بيلو لبعتها تيار يروح من تي حاس كلام هذا بيس سيدي أيانا فوق على توراد وجوهم كديار دينك كجبحان السعودية العربية والميرو عياله والله نقابي سيدي بيك كجبح صيد تبعنا باكستان أيو لا أدي وين يرو السعودية أنا أفك عرب دموية أفك له قانون تولد دموية تولد كل كان أنا قانون دينك كوالا وفرح مية كعنته وكشيء أنتي أي جدة شوفتين مرور بها بهالكلمرية أبها بمدرستي أقرب أقول هذه ولا الله ذا بكدوني يحبه عبسي أنتي اللي عبسي قلن كريو دنب اللي عبسي كلي باكستاني يا إنديا برت أي حد ككود أجان وأنا عجبت شيء أو دهسياش بدنا أنا أجنين أيوني كانوا ولا شيء مركي ويدوفين أي باكستان تجانا وحاو بيجوري سكول عمله وتصدق في كل شيء وأبيه ويدي ولا شيء ولا الكين هبيتي إيدي عائلتنا وساي سوى نحكي في طرق وناي هولس يعني ضمن هولس يعني بكتير نحكي شيء أفكر حكم التقانو meeshan ay joogto waa xadka Pakistan iyo India u dhaxeeya badan iska faranta oo aan dadka dalxiisayaasha ay badan tagin dadkii Pakistan tahay marka ay Sacuudiga ka yimaadaan ma soo degaan aad baa loo soo dhaweeyay ninkii waa la soo dhaweeyay xoolo loo qalay waxa la yiri wallahi waa brigade ninkani Sacuudiga lacag baa laga soo shaqaysan jiray Quraysh buu ka keensaday in Quraysh ay Sacuudiga ninkani ka soo shaqaystay tayar waa ciyaal wuxuu waa xaaskayga
sacuudiga ayaan ku guursaday sacuudiga meherkaygu ka dhacay dabadna waan halkan baan ula soo guuray tayari afkan lagu hadlayo ma fahmayso meelay wax marayaana ma fahmayso in badbaado loo wado ayuun bay moodaysaa hooyadii iyo dadkii baa wada yaabay laakiin markii dambe waa la iska aaminay tiyarad waxba lama socoto habeenkii arooskii baa noo dhiman meherkaygu sacuudigu ka soo dhacay wax meherna ma dhicin reer markii dukaanka ku faraxumeeyay qura ayaa dee kulantiba ugu horeysay tiyarad waxay ku bahbaabirtay iyadoo cilla iyo xidhno loo saarayo naagtiisii horena ee isagu qabayna way maseertay oo halkan bay ka baataa baqleedahay islaan weyn ahaydna tiyarad cilaankii wixii way u hindhamaysatay cid allaale cid ciirsi iyo miciin u ahayna ma jirto halkii ayaa ninkii dad qale inantii yaray qol loogu xareeyay xaaraantii uu ku bilaabay markii dukaanka sacuudiga tuuladoodii ku yaala joogtay ayuu halkii dabada u qabtay naagtiisii weyneed baa uu ku yidhi ha kula joogto oo shaaqiyad ka dhigo ha kuu shaqayso waxay ku tii waranaya nin yaroo layla qabaano da'dan jooga gurigii joogi mayso orda meelaha laado ila dhaaf uu ka kaxeeyey walaashii oo xadka indiya sii xigta ayuu u geeyey 2 sanadood ayuu ku walaalyahay intan soo shaqaysanayo oo guri u dhisayo meel dejisanayo walaashii ayaa ka haysay oo tirani ila joogaysa walaashii ayaa xoolahana u dirsan jirtay dharkana ku dhaqan jirtay ciyaalkeedana oran jirtay mar bay ugu adeeg halkii sidee u ahayd markii dambe 2 sano ka soo wareegtay ka soo kacaystay meel buu dejiyay mid buu ka dhalay laba ka dhalay saddex buu ka dhalay ubad buu ka dhalay markii ay meeshii la yar qabsatay afurduuyina qasab ay ku baratay ayuu ninkii inantii yaray illa kaga dhaqaaqay wax biilana ma uu siin Faadumo yar markay arkay inay dhowr u badan haysato cid miciinana aanay jirin sacuudiga meeluu ka xigo iyo wadda sacuudi leeyahay inuu jiriyo in kale ba ay xataa muhmal ka galayna waxay dhexda u xidhatay sidii ubadkeeda ay u masaariif lahayd maalin $1 hesho iyo maalin $1 soo hesho waxay dhimacday inay ubadkeeda u shaqo tagto u shaqayso reerahaasi u tagtaa u soo shaqaysaa dharka u soo dhaqdaa xoolaha u soo listaa digada xiriyaha saalada xoolaha ka gurtaa meesha waxaas ka shaqaystaa ubadkeeda ku biirsan ninkiina dib ugu muusoo laaban Faadumo iyo carruurteedii Faadumo halkii bay sidii u joogtay muddo 20 sanadood koob iyo 20 sanadood markii ay ka soo wareegtay halka ay behoofka ubadkeeda ku korinayso daamankeedu ku teen si kale ay u ekaatay ay maalin waxay soo gashay meel khudaarta lagu iibiyo khudaarta iyadoo khudaar iyo wax khudaarta qurqurmay waxa meelaha ka urursanaysa kadibna waxay si lama filaana u maqashay niman xoogaa u jiro afka Carabiga ku hadlaya way u soo dhawaatay markay hubsatay luqadda ay ku hadlayaan in Carabi tahay ayay ilinis cilin weyday waxay tireen ku macarabaasiin bay ku yiraahdeen anagu waxaan nahay Sacuudiyaan waxay tireen inuu Sacuudiya baa nimankii baa la yaabay raamadiga sidan way ba Sacuudiyaan مش معقول تاني maaha waxay ku jiraha Sacuudi baan ay meel heblaayaan ku dhashay magaalada tuulada heblan la yiraahdo ehelkaygu waa sidaas nin baa soo afdub wixii oo taariikh ah ayay dabada u qabatay saddexda nin ee Sacuudiyaanka ah ee meesha ay kula kulantay Faadumo laba ka mid waa cilmi baarayaal oo jaamacad bay ka socdaan mid ka midna safaaradda Sacuudiga ee dalka Pakistan ayuu ka shaqeeyaa saadaraad buu nimanka soo Clayton company soo sameeyay u soo raacay safarkan ay meesha ku marayaan waxay ku yiraahdeen bal numberkaagana noo qor number meesha tuuladana noo sheeg ehelkaagina magaciidu noo shuuxiba ka wada qoreen bal anaga warbixintaada hadii ay waxan sax tahay u gudbinna bay ku yiraahdeen sidii bay kaga tageen labadii nin baa Sacuudigii ku laabtay ehelkii bay raadiyeen tuuladii bay ugu tageen odaygii oo gaboobay iyo ciyaalkii oo weynaaday waxay ku yiraahdeen ma saaxiibel ma taqaanay Faadumo la yiraahdo oo dad ugu dhashay way jirtay baro hore ayaan inta waayay inay dhimatay ayaan ku xisaabiyay waxa la yidhi may dhiman bay ku yiraahdeen inantaadii ninkii Sacuudiyaanka ahaa ee ninkii Pakistaaniga ahaa ee halkan dukaanka ku haysan jiray ayaa afduubtay Pakistan ayaanu la tagay ciyaal fara badanna way u dhashay wadankaas ku nooshay xaaladdeeduna aad u liidatay ku bal numberkeeda ii reebay numberkeedii bay u reebeen isagana numberkiisii ayay ka qorteen iyo inan walaasheeda oo guriga joogtayna numberkii bay ka qorteen labada number bay ka qorteen odaygii inantii yareed ma uu wicin Faadumo laakiin nimankii Sacuudiga tagay mid ka mid ah Faadumo soo wacay oo yiri ehelkaaga warbixintii waan gaarsiinay waan kula soo hadli doonaa numberadana waa kaaga soo qaaday kana waa kii abaha kana waa kii walaasha aad bay ugu mahadnaqday uguna faraxday markii laakiin ay maalinnimadii soo wici waayeen ay iyadu dantu ku qasabtay inay Pakistan ka soo watanto oo lacagtii dirhamaadkii ay maalinta shaqaysay ubadka cunto uma siineen telefoonka ku shubashada Sacuudiga lagu waco ay ku shubatay aabaheed ayaana horaan wacday halkii ay filanaysay aabaheed inuu ku farxayo oo abi da gurayo fajiciso ayay kala kulantay
way isu sheegtay wixii dhacay bay dabada u qabatay xaaladii bay ka wareysatay wuxuu ku yidhi aabbo waan idiin sheeka dhaafay markii inantii yar la waayey odayga weydiintii waa ku fara badatay inantaadii meeday inan xubay baababa oo dee dacaayad baa suuqii loo fidiyey si uu dacaayadda uga nabad galo iyo weydiinta faraha badan sumcadda iyo karaamada qoyskiisana u ilaaliyo wuxuu yidhi inantaas inan xunbay ahayd rag bay raacday kadibna waxaan is intii ceeb ku soo jilahayd aniga gacanteeda ku dilay ayuu suuqa galiyay kadibna weydiinta odayga saasay kaga hadhay Faadumo already odaygan uu ka safrayba markuu muddo raadiyay la waayay ceebtiina suuqa u gashay kadibna wuxuu yidhi anaa badilay inuu gabadh xun bay ahayd saas markaa odaygani inantaa kaga safray markii u sheegtay wixii ku dhacay odayga wuxuu ku yidhi aabbo muddaa ka soo wareegtay hadda waa lagu ilaaway dadkoo dhanna inaad dhimatay bay u haystaan sababtoo ah gabadh xun baa ummadda ilaahay ku aamintay فضلني مكتب واحد ضد أبغى هيسطول عيال هيسطول باكستان دقنتهاي باكستان كذا يسكيجو وحابل لقى في الشو ما يهاي تيري يابو لهاي أوكياني ويوقعدن ويدي أبي هذا يسلهاي دي قط كارسو وفرحه بلا قادر ومفرح يدونه قاب كاسي ولا كلا كلامتاي إلى هاي يابو أوكياني وحيكون شيء أديك أبي متي مية وحلمي أبها وأنا هاي فاضون سمتي أبها وأنا هاي لكن أبغى بقوة ضل هاي ستادي وحنكون قبل كرواد ويناتي أول بينو كوريون بنقول لهاي مركزين تي عيب كليس وجدي لهاي هل كعاب سمعت شرفت إذا هيقدر من إيميش هذا يسكتشو تلفون كنا وجه ويقعدن ويدي كتبنا وحي كسر عسى تلفون كحي كنت تفضل أديكم هاتسون هو يدي ميدي بكرتا وكل هو يدا مركي لجواي عيبتي أيوة كيسن ويدي تبنو ويدي لبنتهم هو ده حنو بقول لبنت تلفون كنا مرة لبعض بقول لك كتبنا ولا شيء أي وعضي ولا شيء مركي وعضي سيدي لقضي أي كجوهري ولا شيء كل هذا يكسر وعضه بوفي معني هنوس الويني وحاسي وواحد بتبي نقطة أنت سبركي كلا قاعدي ولا شيء بيد مركز أو عضي ولا شيء مركي وركي وشافتي استدوا كوبر نحيسة دو وقفت مرة كان نحيسة ولا شيء واحد كنت أختي هذه السعودية مهمتي باكستان باطي وبطل هي سبتة فضلا وحبي مكسوك برجع عندكم أنه هاي وردي متى أبو وعجوز أنا وغير باي شيء ويلشي كلا غير أي شيء وحقول الله ماشي هذا نولش هذا إسك آمن هالكاجي إسك شوك ده الله معك فاضمو xanuunkii hore maray xanuunkan ayaa kaga darnaa sida heertabajir la dhibaatiyay dambi ay gashay aanay jirin saddex ubada oo si sharci daraanin xoogu kaga dhalay haysata wadan aanay joogta saddex heertabajir ahayd markii dambe ubadkii lagu dayacay dhexda u xilatay waxa soo duruufaa la soo martay ehelkii ay islahayd way wax xanuunka kala kulantay runtii waxay noqotay wax subxaanallah halka markay marayso ويسكت قناعي معلقتي تنبيه أي سلة ما فيلنا وحيوكل على نمبر كي ويلكي سفارة السعودية جاء باكستان كشغين وحنا يوجش كيس قصة دي يدا يفهم بيدا وكلا علي وكويري مساسة عليها أوكي وحكو جود بني يا سفير ك وصول كجود بنكو جود بني يسوي شغال وها وصول كان كو جود بني يا باكستان السعودية باكستان وفريق وصول كأيام وربحين هذا جود بني وصول كأيام وربحين توجش كي وزول كانوا وحكو جود بني سفارة سفير كأيام جود بني سفير كأيام وربحين توجش كي كدبنا سفير كأيام مهل كاجي بكون عيها ميكو دارينها هديه الكاجو بكون عي dalkaagi Sacuudi Carabiga ayaa ku baahan dalkaagi Sacuudiga ayaa ku baahan dalkaaga kuma nicin waa qasaruntii aad murugo leh dalkaagina waad ku soo noqonaysaa waana lagu soo celinayaa safaaradda ayaa bal looga sameeyay Faadumo safaaradda ayaa la keenay safaaradda Sacuudi Carabiga uu ku leeyahay dalka Pakistan inta kadib maxaa dhacay qaybta labaad ee sheekada ayaan kula socodsiin doonaa haddii aad ka heshay la wadaag saaxiibka ama saaxiibta kulanti dambe fi amaan Allah